inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahaya degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow haddana weli waxaa lagu soo waramayaa in xaafadaha degmada Afgooye qaar ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan rajo wanaagsan ay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ali Saciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda federaalka Hamza Saciid Hamza ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye waxay tageen isbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qayb ka mid ah ay biyuhu fatahaadu galeen gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Umar Qasim ayaa sheegay inuu hakaday fatahaada uu wabiga sameynayay laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha xaaladda fatahaada ee degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa wabiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku jiraan aysan ka bixin guriyihii wadooyinkii beerihii ay weli ay go'yihiin isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay laakiin maalmahan ilaa maadis weli fatahaadii uu joojiyay biyaha malahan gudoomiyaha degmada Afgooye wuxuu kaloo sheegay mas'uuliyiinta degmada Afgooye galinkii dambe ee shalay soo gaaray ee gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dawladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada Afgooye sidaas darteedna ay ballan qaadeen gurmad degdeg ah inuu soo gaari doono degmada Afgooye magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay dhaqdhaqaaqa ishooday ku soo arkeen ballan qaado fara badan way sameeyeen degmada Afgooye dhaqaale badan inay u hayaan ay soo gaarsinayaan sida ugu dhaqaale badan way loo ballan qaadeen dadka ay fatahaada ka barakacay waxyaabo badan way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yar oo kaash ah alaabo yar oo maacuun wax noocaas ah laakiin baahida degmada way ka badan tahay shalay ishooda waxay ku soo arkeen sida baaxadda leh oo balqan oo degmada waxay soo gaarsay tiro ka guudna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen dadka fatahaada ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada Afgooye inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaada Afgooye haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaadu ay saameysay hay'adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurbo joogta laga soo aruuriyay wakiilka hay'adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee la soo gaarsiiyay inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaada ka barakacay balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho dadka dhan bini'aadana aan wada gaari karno waxaan bilaawaye waxaan leenahay waxaan bilaawaye waxaan idinka sugaynaa Somali Community dadkiina inaad wax kale u qabataan masiibadu waa bilaaran tahay waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay ku soo daysadaan walaalahooda si u soo gurmadeen Somali Community ay soo gurmadaan insha Allah marka waxa way tawfiiq inaan waafajiyo xiriiriyaha hay'adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamcuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaada ee ka jirta degmada Afgooye aan weli xal loo helin sidaas darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay laabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaadu ay saameysay siinka maxad Elyaane maxad guud iyo maxad gaadba asaga maxad santiin waa meeshan waxa ku soo kulunsanaa dadkii lacag ka tala gali dhibaatada oo biyaha wabiga Shabeelle degmada Afgooye oo musiibada ka habsatay sidaas arag oo haytaan aytira iyo siigaala daafiil raqayl iyo balguri fadhiyaan marka ma dhameystiran baahidiyo mana buuyaso ilaahay baahida daboolo karo uma kadib waxaan siin rabnay Somali Community Foundation aadsan dadaasheen waxa soo biseena dadkeen soo gurmateen soo dhina aroogsateen dhibaatadiyoona ma sahlana marka waxaan sii kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aad iyo baaxad wiinta si kastaba ha ahaatee weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye iyadoo Afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku horumarsan ee gobolka Shabeellada Hoose